Assalaamu calaykum. Dad badani waxa ay ka cawdaan xanuunada ku dhaca indhaha oo badankooda ka kaxeeya aragtida dhow ama tafog labadaba. Sidaa daraadeed waxa jira cuntooyin ka hortaga dhibaatooyinka bini'aadamka ka soo waajaha dhinaca aragga. Haddaba maadaama indhaheenu ay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee aadanaha, waxa fiican inuu qofku ilaaliyo caafimaadkiisa indhaha isla markaana uu quuto cuntooyinka ay ku badan yihiin macdanaha kala ah lutein, omega 3, fatty acid, vitamin C iyo vitamin E iyo maadada loo yaqaan zinki oo ka hortagta xanuunada indhaha ku dhaca. Haddaba daawade baaritaano iyo cilmi baarisyo la sameeyay ayaa iftiimiyay in cuntooyinka soo socda ay faa'iido caafimaad u leeyihiin indhaha bini'aadamka. ugu horeyn daawade kaarooga ama kaarootada qofba magac buu yaqaanaya ayaa kamid ah cunooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada. Haddaba kaarooga waxa ku jirta maado la yiraahdo beta carotene oo indhaha faa'iido ugu jirto oo waliba siyaadisa awoodda aragga. Haddaba markii kaarootada la cuno maadadaas waxa la geeyaa beerka, kadibna beerka waxa uu bedelaa vitamin A, kadibna vitamin A-ga ishu waxay u sii bedeshaa maado kale oo muhiim ah oo ishu u baahan tahay oo loo yaqaan rhodopsin, waana maadada u qaabilsan aragtida midabka. Haddaba maadada loo yaqaan beta carotene waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca sonkorta isha ay gaarsiiso iyo caadka indhaha fuula. Sidoo kale karootadu wuxuu kaloo ka hortagaa daawona u yahay xanuunka ku dhaca indhaha ee loo yaqaan macular degeneration. Ciladaasina waxay timaadaa qofku markuu duqoobo ama gaboobo. dhinaca kale kalluunka ayaa ka mid ah cunooyinka sare u qaada caafimaadka indhaha. waayo saliidda kalluunka gaar ahaan noocyada kala duwan ee loo yaqaan salmon, sardine, herring, mackerel ama halibut waxaa ku badan maado la yiraahdo omega 3 oo u fiican caafimaadka indhaha. qof kasta oo joogta u cuna kalluunka waxa uu iska difaacaa 8% xanuunada aragga dila, sababtoo ah waxa kaloo kalluunka ku jira oo laga helaa vitamin D kaasoo ka caawiya inay indhuhu noqdaan qaar caafimaad qaba. sidoo kale maadada omega 3 waxay jidhka kale ka caawisaa inay caabuqa iyo subaga hoos u dhigto ama qofka ka ilaaliso cudurrada asaasiga keena sida cudurka loo yaqaan Alzheimer's. dhinaca kalena daawade caleenta cagaaran ayaa iyaduna ka mid ah cunooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada. caleenta cagaaranna waxaa ka mid ah saladhka, kaabashka, koostada iyo wixii la halmaala ee dadku cunaan ama khudaar ka dhigtaan. waayo caleenta cagaaran waxaa ku jira maadooyinka antioxidant iyo lutein oo ay kaydsato qaybta la yiraahdo macula ee ka tirsan isha, waana qayb ka mid ah retina oo iyaduna ah qaybta sida dabiiciga marka cadceedu qofka qabato indhaha xidha ama isha ka difaacda iftiinka badan. sidoo kalena maadooyinka la yiraahdo antioxidants ee laga helo caleenta cagaaran waxay nuugaan leyrka buluuga ah oo dhab ahaantii khatar badan u keeni kara qaybta la yiraahdo retina ee isha ama indhaha, waxayna qofka u keeni karaan inuu si fiican midabada u kala garto. waxayna cilmi baarayaal badan sheegeen in maadada la yiraahdo lutein ay hoos u dhigto halista cudurrada indhaha ku dhaca sida in qofku indhabeelo marka uu da' noqdo. haddaba caleenta cagaaran ee khudaar ahaan loo cuno waxay sidoo kale u fiican yihiin caafimaadka guud ee qofka, sababtoo ah waxaa ku jira macdanaha kala ah potassium, magnesium, folate, vitamin A, vitamin E, vitamin K iyo weliba antioxidant kuwaasoo unugyada ka difaaca xanuuno aad u badan. geesta kale arabakida ama galeyda ayaa ka mid ah cunooyinka u fiican indhaha, waayo mid ka mid ah hadhuurka ama firileyda ugu wanaagsan waa arabakida oo ay ku badan yihiin maadooyinka ay ka mid yihiin zeaxanthin iyo lutein oo u wanaagsan indhaha. waxayna indhaha siisaa haddii uu qofku koob barhkii cuno 1.8 garaam oo midab sameeyayaasha indhaha ah. sidaa daraadeed arabakida waxaa ka buuxa maadooyinka ama fiitamiino badan, waxaana ka mid ah vitamin C, vitamin B5, vitamin B1, folate. sidoo kale waa il muhiim ah oo laga helo macdanaha ay ka midka yihiin magnesium, phosphorus, iron, copper, manganese iyo zinki oo jirka bini'aadamka ka caawisa inuu kansarka iyo weliba macaanka iyo wadna xanuunka uu iskaga difaaco.
dhinaca kalena daawada yaanyada oo sidoo kalena loo yaqaano tamaandhada ayaa ka mid ah cunooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada. haddaba yaanyadu gebi ahaanba waxay faa'iido u tahay jidhka bini'aadamka, arrintuna kuma koobno oo keliya qolofteeda la sheegay ee la yidhaahdo waa caafimaad ayaa ku jira, laakiin guud ahaan waxaan ku jirin waxa loo yaqaano calorie oo ah tamar cuntadu ay dhaliso oo badankeedu tamarta waxa ay keentaa. waxa ugu horeeya buurnida iyo cayilka, waxaana ay ka samaysan tahay yaanyadu boqolkiiba 90 biyo. sidoo kale yaanyadu waxay horumarisaa caafimaadka lafaha, sidoo kalena yaanyadu waxay hodan ku tahay vitamin C-ga iyo calcium-ka iyo fiber-ka oo ah maadooyinka fududeeya habdhiska dheefshiidka. haddaba aynu u soo laabana mawduuceenne, tamaandhada ama yaanyada waa il muhiim ah oo haddii la cuno laga helayo maadada loo yaqaano carotenoid oo ay ku sii jirto maado kale oo loo yaqaano lycopene oo ah maadada dhab ahaantii ama tamaandhada midabkeeda casaan u samaysa. sidaa daraaddeed daraasad laga sameeyey ayaa sheegtay in maadadaasi indhaha gaar ahaan qaybta loo yaqaano retina ay ka difaacdo leylka dhaawaca u keeni kara. sidoo kale waxay maadadani ka hortagtaa ama unugyada jidhka ka difaacda dhaawaca uu keeno cudurka kansarka ee ku dhaca xubnaha taranka iyo caloosha iyo sanbabada. waxaa kaloo tamaandhada aad ugu badan vitamin C oo isaguna indhaha ka ilaaliya in araggu ka tago ama dhaawac ka gaadho xagga aragga, waxaana u saamaxaa in iron jidhku ka nuugo cuntada uu qofku quuto. dhinaca kale daawade, baradhada ayaa iyaduna ka mid ah cunooyinka caafimaadka indhaha u wanaagsan. baradhada ama loo yaqaano bataatiga waxaa laga helaa dheef badan iyo fiitamiino fara badan oo adkeeya caafimaadka jidhka kana ilaaliya cudurrada halista ah. sidaasoo kale waxaa laga helaa carbohydrate iyo weliba contains badan oo ka shaqeeya adkeynta caafimaadka dheefshiidka kana ilaaliya dhibaatooyinka kusoo waajahan sida caloolmajiirka. haddaba baradhada ama bataatiga qofba magac buu yaqaanaye waa mid ka mid a qudaarta ugu muhiimsan dadkuna ay aad u isticmaalaan, sidaa daraaddeed waxa ay ka mid tahay qudaarta muhiimka ah. haddaba baradhadu run ahaantii waa mid kuu wanaagsan adiga caafimaad ahaan. nasiib darase dadka qaar ayaa waxay u isticmaalaan baradhada siyaabo khaldan ama si khaldan, iyadoo u sababi karta inuu ku dhaco cudurka loo yaqaano wadno xanuunku. sidaa daraaddeed baradhada ama bataatiga waa cuntooyinka lagu tiriyo macaanka, waxayna aad waxtar ugu leedahay caafimaadka indhaha sababtoo ah sida karootada waxaa ku badan oo ku jira maadooyinka loo yaqaano beta carotene, vitamin A iyo vitamin C iyo folate iyo macdanaha kale ah magnesium iyo potassium oo dhammaantood u fiican caafimaadka indhaha. geesta kalena daawadayaal, cambaha ayaa ka mid ah cunooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada, waayo cambuhu waa midho macaan oo weliba cun ahaan iyo cabitaan ahaan loo isticmaalo, wuxuuna aad uga baxaa dalkeena hooyo iyo meelo ka mid a dunida. cambaha waxa uu ku jira midhaha ugu caafimaadka badan ee la cuno. sidaa daraaddeed cambaha waa mid ka mid a khudaarta ugu macaan ee ugu caafimaadka badan. sidoo kale waxa uu ku wanaagsan yahay in si joogta loo cuno, kaasoo ay ka buuxaan nafaqo iyo fiitamiino fara badan. haddaba sidoo kale waxaa cambaha ku jirta vitamin A oo la wada og yahay inuu muhiim u yahay aragga iyo caafimaadka indhaha. dhinaca kalena saliid macsarada ayaa ka mid ah cunooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada. saliid macsaradu waa nooc ka mid a saliidaha badan ee la isticmaalo oo cuntada lagu darsado xoolahana la siiyo, waxaana laga sameeyaa geedka sisinta. markii laga miiro waxaa soo hara qoloftaana waxaa loo yaqaanaa maankaal, waxaana la siiyaa xoolaha. haddaba saliidda waxaa aad looga isticmaalaa waddanka Soomaaliya iyo wadamada Aasiya sida Hindiya iyo Shiinaha. sidaa daraaddeed macsarada waa saliid aad u qaaliya oo leh faa'iidooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin. saliid macsarada waxaa la isticmaali jiray kumanaan sano ka hor oo Hindida iyo Shiinayska ayaa u isticmaali jiray daawo lagu daaweeyo cudurro badan, waxaana loo yaqaanaa saliid macsarada boqoradii saliidaha, waxayna magaca ku mutaysatay qiimaheeda caafimaad iyo cunno ahaanteedaba. haddaba saliid macsarada waxay daawo u tahay wareerka iyo aragtida daciifka ee indhaha. sidoo kalena babayga ayaa ka mid a cuntooyinka caafimaadka indhaha sare u qaada, waayo babaygu waa faakiha aad u macaan, waxaana laga helaa wadamo kooban oo tiradooda lagu qiyaaso 17 waddan, kuwaas oo ku yaala dhulalka kulaylaha. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada farakutiriska ee babaygu ka baxo. sidaa daraaddeed babayga waxa uu yareeyaa halista caadka indhaha fuule ee loo yaqaano cataract.
babayga waxaa kaloo ka buuxa fitamiin A iyo maadada loo yaqaano beta carotene iyo walxo kale oo muhiim u ah caafimaadka indhaha